إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما oday faqiir لنا ah رب oo kana mid ah dadka fuqarada سواه ee ku nool dalka Thailand. Muuqaalkan ayaa soo jiitay malaayiin dad ah oo ku nool daafaha caalamka. Ninkan odayga ah misna faqiirka ah waxa uu ku nool yahay meel aysan ishu bilaadanka jeclaysanin. Waxa intaas u sii dheer labadiisa lugood mid ka mid ah oo ay go'an tahay wuxuuna isticmaalaa lugaha macmarka ay ka samaysan caaga. haddana waa mid noloshiisa ku qanacsan. odaygan maskiinka ah subaxii waxa uu u kalahaa magaalada asagoo raadinaya waxa uu ku noolaan lahaa ama uu ku maareyn lahaa noloshiisa. marka uu baxo subaxii waxa uu sii maraa wadooyinka waaweyn ee magaalada wuxuuna ka sii aruursadaa cagadaha ka samaysan balaastikada wuuna iibgeeyaa wuxuuna ka helaa lacag yar uu noloshiisa ku maareeyo. laakiin dadka qaar qalbiyadooda waa kuwa ka adag dhagaxa, marmarka qaarna waxa uu kala kulmaa caqabado iyo dhibaatooyin. waxaa dhacday in marmarka qaar ay ku shubaan qashin asagoo cagadaha ka aruursanaya wadooyinka. sidoo kale waxa uu sii maraa maqaayadaha asagoo carafta raashinka uu leeyahay ku sasaba noloshiisa maadaama uusan awoodin inuu wax iibsado. maalin maalmaha ka mid ah waxa uu soo maray waddada dhinaceeda waxa uu ku arkay arday iskuulle ah oo wax iibsanayso ilaa hal gabar mooye. wuxuuna dareemay inaysan gabadhan awoodin inay wax iibsato, waayo qofka faqiirka oo keliya ayaa dareemo dhibaatada haysata qofka kale ee faqiirka ah. sidoo kale nimcada caafimaadka waxaa dareemi karo qofka xanuunsan. ninkii maskiinka ahaa ayaa lacag jeebka ka soo bixiyey asagoo aan ka labalabaynayn, wuxuuna gacanta u geliyey gabadhii yareed. gabadhii ayaa la yaabtay ayadoo faraxsan waxa ay u degdegtay meeshii wax lagu iibinay. waxa intaas sii dheer markii ay wax iibsatay inuu baaqi u soo laabtay. haddaba ma laga yaabaa in aad qof maskiin ah wax siiso misna uu baaqi kuu soo laabto? dabcan jawaabtu way sahlan tahay, waa maya. maalmo kadib gabadhii yareed waxa ay si lama filaan ah ku aragtay ninkii maskiinka ahaa wayna ku faraxday. ilbiriqsiye kadib ninkii maskiinka ahaa waxaa si naxariis darraha ugu duldhacay nin tuug ah kaasoo ka soo xaday haweenay boorso. ninkii maskiinka ahaa ayaa dareemay in uu ninkan tuug yahay uu soo xaday boorsada wuuna kula dhegay boorsadii. kii tuuga ahaa ayaa damcay inuu boorsada ka fujiyo, waa uu ka fujin waayey ilaa uu afka ka darbeeyo, balse wax kasta oo uu ku sameeyey waa uu ka qaadi waayey. xitaa waxaa laga jebiyey lugtii caagga ka samaysanayd. ninkii tuuga ahaa ayaa iskaga tegey markii ay booliiska soo dhowaadeen. ilbiriqsiye kadib meesha waxaa imaaday booliis iyo naagtii laga soo xaday boorsada iyo dad fara badan oo ninkii ku soo shamuumay maskiinka ahaa. waxayna dadkiiyo booliiska u fahmeen in ninkii maskiinka ah uu yahay tuuggii soo xaday boorsada maadaama ay ku arkeen boorsadii. laakiin xaqiiqda ma ogaan karin waxaan allah ka ahayn. iyo gabadhii yareed ee uu shilinka siinaya oo taagneed goobtii waxa ay ka dhaceen meel u dhow. ninkii maskiinka ah ayaa gacanta laga katiinadeeyey iyagoo aan booliiska waxba hubsan, waxaana la geeyey xabsiga oo lagu xiray. badanaa dad aanan waxba galabsan oo xabsiyo mutaysay. ninkan maskiinka ah xitaa waxaa u sii dheer asaxaan uu sameeyey ayuu xabsiga ku kasbaday. ninkii asxaanka ayaa iska ooyey wuxuuna isweydiiyey ma asxaankii aad fashay ee abaalgudkiisa saa noqday mise qalbiyada bini'aadanka ayaa dhagax noqday. maalmihii ayaa tegey, gabadhii yareed ayaa ka walwashay maadaama ay arkaysay xaqiiqda meesha ka dhacaysay, mana awoodo in ay wax samayso. ilaa maalmo kadib TV-ga ay ka aragtay barnaamij lagu taageerayo dadka masaakiinta ah ama dadka fuqarada ah aan waxba haysan. jeebka ayay gacanta gelisay waxayna ka heshay baaqigii ka soo haray ninkii maskiinka ahaa lacagtii uu siinayay, wayna faraxday. waxayna u carartay meelaha laga dirsado taleefanada ay leedahay dowladda. waxayna wacday wakaaladii u doodaysay dadka masaakiimiinta oo ay nambarkoodii ka aragtay telefishinka. waxayna u sharaxday sidii ay wax u dhaceen. nasiib wanaag way aqbaleen. markii ay arrinta baareenna waxaa u soo baxday sidii gabadhii yareed ay sheegaysay. xubno ka tirsan wakaaladii ayaa waxa ay soo aadeen xabsiga si ay uga soo sii daayaan ninkii maskiinka ahaa. markii uu imaaday bannaanka waxa uu arkay majmuuco dad ah oo ku sugaysa bannaanka oo ay ka mid tahay naagtii boorsada laga soo xaday. waxayna hadiyad ugu keeneen lug macmara oo ka samaysan caag iyo baaskiilka loogu talagalay curyaamiinta. wuxuuna ogaaday in weli dunida ay ku nool yihiin dad qalbi jilicsan oo ay bini'aadanimadu ku dambayso. sidoo kale waxa uu ogaaday dad naftiisa daneynaya in ay dunida ku nool yihiin maadaama uu cid la'aan yahay uuna faqiir yahay.
shilinkii uu siinayay gabadhii ayaa waddada u furtay uuna ku helay raaxo iyo nolol wanaagsan noloshiisa intii ka dhibneed. haddaba ha isdhihin waxaan haysta cidna wax u tari mayso, way yar tahay, waan ka xishoonayaa inaan bixiyo. waxaan sidaan u yar haddaan bixiy dadka dhana isoo fiirinayaan. waxaad bixisa ayaa kuu noqon doona waddadii guusha adduun iyo aakhiro, ha badnaado ama ha yaraado. haddaba hadduu ku cajabgeliyey muuqaalkan, like saar, janaalka barasha subscribe dheh, furo gambaleelka si muuqaal kasta aan soo dhigno uu kuu soo gaaro, aadna u noqoto akhyaarta ugu horraysa uu soo gaaro muuqaalkeena. intaan muuqaalkan muuqaal la mid ah ku kulmayno, waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.